Jiradani maalmahan socota waxay dib u keentay dadka noloshooda. Dadka adduunka ku nool waxay isku dayayaan inay kala dheeraadaan si ay ula dagaallamaan fayraska hadda socda. Waxaa la xiray suuq ku yaalla caasimadda dalka China ee Wuhan. Suuqaas oo magaciisa la yiraahdo Wuhan Seafood Wholesale Market, kadib markii cudurka zaid ugu faafay magaalada Wuhan. January 20-keeda waxaa la diiwaangeliyay 136 kees. Kiiskii ugu horreeyay waxaa laga diiwaangeliyay Beijing iyo Shenzhen. 3 maalin kadib, January 24-teeda, dowladda dhexe ee Shiinaha waxay bandow saareen Wuhan iyo magaalooyin kale oo daris ahaayeen. Sawirkan hadda aad u jeedaan waa buundo ku taalla Wuhan. Waxay ahayd January 12-keeda, 2020, 2 asbuuc kadib. Buundada waxay noqotay meel eber ah, nolosha China-na way sii beddelaysay. Asbuucyaal kadib waxaa la dhisay isbitaal gaar ah, kan camal hadda aad u jeedaan sawirka aad ugu jeedaan. Dhismada waxay bilaabatay isla galabtii markii magaalada la saaray bandow, January 23-deeda. Bukaankii ugu horreeyay waxaa la keenay 11 maalin kadib, February 3-deeda. Haddana garoon kale ayaa laga dhisay hosbitaal waqti yar gudaheed. Tan darteed, meelihii baakinka ahaa hataa waa la isticmaalay. Malaysia has confirmed its first locally transmitted case of the novel coronavirus. The Philippines has reported the first death. Tonight, the virus has spread from China to 47 countries. Iran's government has announced a spike in the number of coronavirus cases. Inside the Islamic Republic, death toll rates are rather misleading. It is clear, however, that the holy city of Qom is the epicenter of that outbreak. Iran waxay noqotay waddanka sida xun oo ugu faafay, waxaana ugu darneed gobolka Qom. Sanad walba Iran waxaa soo booqan jiray 20 malyan ka badan dadka soo xajiya. Waxay ahayd magaalo ay inta badan waxbarashadeeda bilaash ahayd, waxaana u badnaa dadka wax ka barta dadka Shiicada. Jiradan darteeda waxaa la joojiyay meelaha la iskugu imaado. Qabriyaal badan ayaa la qoday dhimashada cudurka dartiisa, waliba si zaid ah. Taariikhdu markay ahayd February 21-deeda, dad badan ayaa waxaa ku dhacay cudurka. Bilowgii March, waddanka waxaa la saaray bandow. Waxaa marba marka kasii dambeeya sii kordhayay dhimashada iyo khasaaraha. Waxaa bilaabatay khasaaraha soo gaaray shirkadaha iyo waliba dalka. India has become the latest and largest country to introduce a nationwide lockdown. Over in Saudi Arabia, officials abruptly stopped issuing tourist visas to foreigners planning Umrah pilgrimages. Take a look at this. St. Peter's Square at the Vatican, empty. A drive-through testing station for coronavirus. This makes testing faster and easier than before. The U.S. is now leading the world in the number of confirmed coronavirus cases. New York has become the epicenter of the outbreak in the U.S. 19 million New Yorkers are being asked to stay at home as much as possible. Khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaray ayaa ahayd diyaaradaha. Waxaa bilaabatay in diyaaradaha goobahooda laga bixinin oo baaking la geliyo. Airport-ka aad hadda u jeedaan waa International Frankfurt, oo hadda u jeedaan inay diyaaradaha oo idil ku jiraan baaking. Sawirkan kale waxa uu ku tusinayaa airport ku yaalla magaalada Denmark. Mapkan waxa uu ku tusinayaa sida ay diyaaradaha u socdeen March 2, 2020. Dhinaca kalena waxaan arkaynaa sida ay diyaaradaha ay noqdeen March 30-keeda, 2020. Asxaabta, haddii aad videogan ka hesheen, waxay idin rajeynaa inaad subscribe iyo like saari doontaan. Wixii dhiirigelin ah xagga hoose ee commentiga noogu soo qora.